بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا برنامج كيني تحناها أها برشاد اللغة إنجليشكا أتكلا سعوتين channel كينا يوتيوب جعفر برو. هداد نوع عصبتهاي فضلا سبسكرايب نوصار كان بلالك نفروسي كوسو قاران عشرة دي قدام بي أنسو قلين يوتيوب كان هدانا وحان قد قلينا عشر كينا أغتر قلنا مانتا وحان قادن دونا business words erayada ganacsiga part 1 qaybtii koobaad customer macaamiil waa qofka mar walba oo meesha ku xiran oo wax ka adeegto qofkaas waxaan u naqaanaa customer macaamiil invoice qaansheeg qaansheeg waxaa laga wadaa warqadda rasiidka ah oo markii qofku ka adeegto loogu qoro sida hadda kuwa korontadoo kale warqadda marka korontada cabirka soo saarto nimanka qoran warqadaas maxaa ku qoran qaansheeg sidoo kale biyaha oo kale ayagana rasiidka la socda warqadda kaas waxa loo yaqaanaa qaansheeg ama invoice product alaabta ama badeecada la iibinayo oo qofkaas haysto oo iibinayo dukaanka u saarna waxa loo yaqaanaa product alaabta ama badeecada product profit faa'iido promotion dalacsiin qofkii oo mushaarka loo kordhiyo ama jagadii loo kordhiyo promotion dalacsiin supply bixinta alaabta supply in la bixiyo alaabta la qaybiyo waxa loo yaqaanaa supply wholesale jumlo retail tafaariiq inflation sicir barar macnaha maciishadii ama shaygii qaaliyoobayo lacagtina hoos u dhacaysa wax ma tarayso marka hadii badeecada ay aad u qaaliyoodo lacagtiina hoos u dhacdo markaas waxa leenahay waxa jiro sicir barar englishna waxa lagu dhahaa inflation sicir barar salary mushaar cashier qasnaji ama maqal haye qofka dhaqaalaha ama lacagta aruuriya ayaa waxa loo yaqaanaa cashier hire shaqaalaysiin shaqaalaha markuu company-gan shaqaale qaadanayo muxuu leeyahay hire shaqaalaysiin fire shaqa ka ceerin purchase iibsasho alaab iyo wixii la mid marka iibsanays purchase iibsasho petty cash lacagta yarka ee qarashaadka yarka lagu bixiyo lacag yar oo qarashaadka lagu bixiyo waxa loo yaqaanaa petty cash lacag yar oo qarashaad yarka lagu bixiyo loan dayn wax lacag aad deynsato iyo wixii la mid ah dayn ayaa waxa la yiraahdaa loan dayn payment lacag bixin lacag lagu leeyahay marka bixinays payment lacag sidii la bixiyo payment advertisement xayisiinta ganacsiga ganacsi waxa loo sameeyaa xayisiin marka sidaa daraadeed xayisiintaas maxaa leenahay advertisement xayisiin expenses qarashaadka wixii baxa oo qarasha waxa loo yaqaanaa expenses qarashaad client macaamiilka intaasaan kusoo gabagabeynaynaa casharkeenii ahaa business words erayada ganacsiga part 1 qaybtii koobaad
hadduu ilaa yirahdana qaybo kale oo badan ayaan ka diyaarin doonaa ganacsiga maadaama dad badan aad u danaynayaan haddii aad jeceshahay casharo noocan iyo kuwa kale fadlan like iyo subscribe noo dheh youtube-kana Jacfar Bro una sii shargaray asxaabta kale haddii aad jeceshahay casharo qaas ah oo aan ka diyaarinana nagula wada qaybta commentiga casharka aad jeceshahay si aan uga diyaarino aad iyo aad aan u mahadsantihiin